السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعaan wanaagsan dhamaan saaxiibada ku xiran channelka soo dhawaada barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay guusha ugu horeen waa maxay guushu waa lidka guul darada waxaa la sheegay in koox dhalinyaro ah ay ku heshiiyeen inay koraan buur aad iyo aad u dheereed intaana muuqaalka u guda galin fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe inoo taabo like share ha naga ilaabin gambalaalkana furo si aad uga mid noqoto saaxiibada muuqaaladeena si joogtada u hela mahadsanidin waxay ku ballameen in maalin farxadeed ay jirtay inay maalintaas koraan buurta maalinkaasna oo dadka dhan ay iskugu soo baxayeen waxay ku ballameen maalintaas in meesha la iskugu yimaado oo la koro meeshaas oo buurtaas fiinteeda la iskugu tago waxay isku ballansadeen meeshaas waa la iskugu yimid dhammaantood nin walba wuu isku soo diyaarshay dhammaan way wada koreen dadkii oo dhan waxay dhahayeen ma meeshaas ay kori karaan dhammaan waa waalayhiin nin walba wuu koray nin walba markuu meel dhexsi marayo soo laabanayay waasaseen qaarkood waa soo dhaceen ilaa hal nin mooyaan soo u socdo fiinta ugu sareysa tagay ninkii meesha u sareysa markuu tagay ayuu hoos soo eegay mase waa kaligiis oo raggii oo dhan waa ka hareen ninkii uu soo laabtay hoos u soo degay markii la fiirsay oo si fiican loo baar waxaa la ogaaday ninkan inuu dhagool ahaa dadka hadalkooda soo maqleen oo ku mashquuleen haddana uu soo baqdin oo uu qabinba waxaa la sheegaa 6 talaab in loo baahan yahay si aad u guuleysatid ugu horeyn waa inaad ka fikirtaa labaad inaad falanqaysid saddexaad inaad qorsheysid afaraad inaad isku daydid shanaad inaad sameysid lixaad inaad sii wadid ninkan 6daasba uu sameeyay haddaba maxaa aas u ah fikirka guusha waxaad u baahan tahay 8 ficil oo awood leh kow ugu qofka aad tahay horta adigu maxaa tahay maxaad qaban kartid waxaad adigu tahay oo qaban kartid xirfadaad maxay tahay waxaad adigu ka shaqeyn kartid oo qaban kartid oo adigu aad maamuli kartid horta waxaad adigu tahay waa inaad ogaataa waxaad adigu qaban kartid shaqeyn kartid habeen kartid ka guul gaari kartid xirfadaadu tahay oo aad si dhaba uga run sheegi kartid maxay tahay midda labaad qaado mas'uuliyadda doorashadaada waa inaad adigu horta mas'uuliyadaada qaadataa qof kale mas'uuliyadaada ma ah waxa adigu qalad sameysay adigu dusha saaro hebel baa sidan yeelay hebel aduu sidaas yeeleen adigu waxaad igama soo gaarin waxaas dhan anigu ma sameeyeen wax walba qalad walba oo dhaca dad baan dusha ka saarnaa wax walba oo anaga naga dhaco wax walba oo xaggeena ka dhaco waxyaabo badan oo isbedelana dad baan dusha ka saarnaa runtii waana caadooyin xunxun oo yeelanay marar badanna soo maray waa wax u baahan inaan iska bedelno midda saddexaad noqo qof adkaysi leh xaaladaha adagi waa qayb nolosha ka mid ah oo lama huraan ah noloshaadana dhib waa ku soo marayaa mar waa farxi doontaa mar waad murugoon doontaa mar iska dhexdhexaad noqon doontaa xaalado kala duwan iyo noocyo kala duwan ayaad la kulmi doontaa waxaad u baahan doontaa inaad noqotid qof dulqaad leh adkaysi leh mar walbana waxaad ku sugnaan doontaa xaalad aadan adigu dooran xaaladaha qaar waxaad u baahnaan doontaa qof aad weeshatid dadka qaarna ma noqon doonaan dadkaad adigu aad daneynaysid mar walbana waxaad u baahnaan doontaa qof garabkaaga ah laakiin yaysan noqonin qof adiga ku murjiya laakiin waxaan ku leeyahay mar walba noqo qof alla subxaanahu watacaala barya oo alla subxaanahu watacaala u dhowaada waxaan kugula talinayaa inaad noqotid qof alla subxaanahu watacaala kaaga dhowaado oo alla barya cibaadada allah u gooni yeel allah bari allah u dhowow mar walba waad liibaani doontaa 4 deji yoolal cad mar walba oo adigu hadafyadaada iyo yoolalkaaga dejisatid ood qorshaysatid oo xirfadaada iyo noloshaada si gooniya u dejisatid oo xiriirkaaga iyo hal abuuradaada iyo yoolalkaaga qeexatid oo dariiq cusub iyo guushaada adigu aad waqti u qabsatid oo si fresh adigu maamulatid mudnaanta koowaadna siisatid waxaad noqon doontaa qof yoolkiisa iyo hadafkiisu cad yahay guushaaduna way ku imaan doontaa biidnillaahi alkariim waa adiga iyo sidaad ugu dadaashid wax badan way ku bedeli doonaan waqti badanna waa ku dhaafi doonaa adiga oon guushaadii gaarin waana hubaa in dib u dhac kugu imaan doono balse waxaan hubaa haddii aad dul qaadatid inaad gaari doontid insha allah midda shanaad u adkayso dhibaatada iyadoo lagaa rabo inaad marmar kufto marna kacdo ayaa waxaa dhacaysa inaad marar badan oo isku xigto aad tilaabadaad qaadaba ku fi doontaa balse waxaa la eegi doonaa sidaad u falceliso iyo waxaad adigu
sameeyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala adoomadiisa mid walba wuu eegaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala mid walbana wuxuu eegaa siduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcooyinka uu siiyey iyo xaaladaha ku sugnoonsiiyey siduu uga falceliyo. Nimcooyinka Ilaahay ku siiyey haddaad ku shukrid, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi nimcada in siiyada igu shukrin Ilaahay waa in siyaadina ayuu inagu yidhi Allah subxaanahu wa tacaala. haddii aad igu kufridaana inna cadaabi la shadiid ayuu Allah subxaanahu wa tacaala. Ilaahay cadaabkiisa wuu kulul yahay. qofkii Allah subxaanahu wa tacaala nimcooyinkiisa uga shukriya Ilaahay wuu u siyaadin. qofkii ku kufriyana Ilaahay wuu cadaabkiisa waalimo. Ilaahay cadaab kulul ayuu taabsiinayaa. Ilaahay hanaga badbaadiso. Lambar 6 baro kobac. macnaha inaad qof mar walba noqotid aad u xiiseeya barashada iyo sameynta waxyaabo cusub. inaad waxyaabo cusub iyo farsamooyin cusub iyo waxyaabo cusub oo kala duwan aad soo bandhigtid oo aad adigu nafsadaada bartid oo aad waxyaabo cusub baratid oo jidad cusub baratid oo nolosha waxyaabo badan bay soo bandhigtaa. waxyaabo badan aad baratid oo raadisid waxay muhiim iyo aas-aas u tahay noloshaada iyo guushaada ayay aas-aas u tahay. waadna laga maarmaan, waana muhiim. lambar 7 rumayso nafsadaada. naftaada horta aamin. ma samayn kartaa? yes waa samayn karaa. macnaha waa dadka dhiirigeliyaasha inta badan way u badan yihiin midatan yes waa samayn karaa, I can do dhalu leeyahay. yes waxyaabo waaweyn ayaad ku gaari kartaa oo ku hanan kartaa markaad nafsadaada ku kalsoon tahay. balse haddii aad adigu nafsadaada liidaysid waxyaabo waaweyn ayaad lumin doontaa oo adiga ku fursada. midda 8aad mahadsan bilaabin weliga. man laa yashkuru naasa laa yashkuru Allah. qof aan dadka u mahad celin Allah subxaanahu wa tacaala u mahad celiyo. dadka u mahad celi. waqti sii ehelkaaga, asxaabtaada, saaxiibadaada, walaalahaaga, dhammaan waqti sii. u mahad celi qof walba oo kugu taageeray inuu jidkan kugu dhiirigeliyay inuu hore u socodkaaga kugu yiri hore u soco, waad gaari kartaa guushaada, hore u soco, kugu dhiirigeliyay, waqti kugu qaatay, naf iyo maal kula baxshay, waqti badan ku siiyay, ku yiri guushaada waa gaaraysaa, farxadda kula qaatay, murugada kula qaatay. waqti sii. waxaan hubaa inuu ku xusuusan doono markaad tiraahdo mahadsanid walaalna ku dhihi doono guushaada Allah ku siyaasho, kuna farxi doono mahadcelinta mahad celisi. ha ilaabin mar walba inaad Allah subxaanahu wa tacaala xuskiisa badisid, dadkana u mahad celisid oo tiraahdo mahadsanid walaal. haddaad u abaalgudi kartana aad u abaalgudid, ka farxidid hadiyad iyo waxyaabo lamidana aad u geydid. markaad ka farxidid farxadda ibni aadanka ducadu ku duceeyaa muslim hadduu yahay ilaahay inuu ku aqbalo ayaa dhici karto. muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iido ayaan rajeynayaa. fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, la wadaag muuqaalka saaxiibadaada. haddii aad hore noola joogtana ka mid noqo saaxiibada nagu xiran. hada wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.